iyadoo muddooyinka u dambeeyay ay jireen dhaliilo dul hoogan iyo Masuuliyinta dugsiyada Dawliga isla markaasina ay u soo jeedinayeen qaar ka mid ah bulshada qaybaheeda kala duwan oo ay ku sheegaan in dugsiyada Dawliga ay si aad uga hooseeyaan aqoon ahaan dugsiyada gaarka loo leeyahay ayaa haddaba maanta qaar ka mid ah Masuuliyinta dugsiyada Dawliga gaar ahaan maamulaha guud ee Dugsiayda Secondary School oo qaar ka mid ah warbaahinta kula hadlay gudaha magaalada Hargeysa waxa uu arintaasi ku tilmaamay tu waxba kama jiraan waxaanu sheegay in dugsiyada Dawliga iyo kuwa gaarka loo leeyahay waxba ku kala duwanayn marka laga tago dadaalada kala duwan waxaanu dhaliilo cusub soo jeediyay Masuuliyinta dugsiyada gaarka loo leeyahay isagoo tilmaamay inay siyaasadayaan kana afduubtaan qaar ka mid ah ardayda ugu sareysa dugsiyada Dawliga waana kan isagoo arrimahaasi ka hadlaya khiyaamay ayay sameeyaan khiyaamada sameeyay waxay waa saddex qodob ta koowaad horta ardaydu inaga badayeen marka iyaga ku arday ama 500 arday u fadhiistaan imtixaanka anaga wax laga yaabaa 200 loo fadhiisato marka probability-ga ardaydii ugu sareynaysa fiicnaanaysa way badanaysaa iyaga xaqooda in way tiradoodii baa badan talabaad waxa jira arday fiican oo ku tabcanano ardayga wankii tuuga galaac kama qaadno oo ku dadaalaa buugtan siinna inta uu yimaadaan ayaa waxay oranayaan annaga ku siinayna baskaaga lacag musaacaga ku siinayna lacagna kama qaadin iskuulka soo bedelo ardayga uu fiicnaa marka mar wuxuu sameeyaa private-kii naga tagaya marrow markuu dabato isagoo saddex bilood baa u dhigin ayaa la oranaya ardayga kaalmo fiican kale anaga wax soo barnay iyagu may barin private-iska ma walahi niman badan oo ku shaqeystaa jira oo ardayda la baxa oo maxaan ku dadaala tad saddexaad ardaydu markay eerka yihiin inta u sareysa way iibsadaan lacag bay ku iibsadaan inta iskuulada maamulayaasha Dawliga u tagaanay maamulayaasha kale waxa jira khiyaamooyin badan oo kale waxa jira ardaydu marka ay form 4 iyaga u gaaraan ama form 3 ardayda liidato oo dhan way soo oriyaan ardayga dabeeto waxa noqonaysa inuu wax la'aan ku dhaco tahriibo iyana dadku iskuulkii dawladda oo ogolaato markii soo bedelaan soo oriyaan si aan iyaga ugu dhicin bay ugu talagalaan eekada waxyaabo badan oo khiyaamooyin badan oo ay ku dhaqmaan baa jira laakiin haddii free and fair goal la helo wallahi inaani ardayda Dawliga wax ay ka gaarayaan aanu jirin talabaad anagu waxaanu haynaa ardayda dan yar tahay ardayda mujaahidiinta iyo dadka ciidamada qaranka ee jiida hore jooga ardaydooda anaga hayna iyagu deema hayaan ardayga inta hayaan iyagu waa nimanka wixii dawladdu shaqeeya maareeyayaal wasiiro wajiyada ku xigeenno ay caruurtooda meesha dhigata oo waxaan ku riday dadkii lacagta lahaa haddii iskuulada dawladda la hagaajin waayo dadka dan yartay meel ay tagaan lacagtooda ma helayaan anagu ardayda waxaan ka qaadnaa 80 kun oo shilin waliba tan imika iskuulkayga oo kala deeb guray 85 arday oo ardayda joogan jiida hore ama xirooyinkan ugu xirsanay birtaxiya joogan ayaan bilaash u dhignaa iyaga bal laga soo helo waa kaasi arday quraato oo abihi jiida joogan ma iska bixin karin inuu maxay hayday u dhigo uma dhigaan iyagu waxooda waa lacag private-iskana waxaan leeyahay free and fair ground markaynu helno waxaan hubaa inay askarada ardayda Dawliga yihiin ay 100% ka sareyn doonaan iyaga khiyaamooyinkan haday joojiyaan ardaygan ay kulba nagu soo reeyaan iyo kaanonagu wax baray ay lacagta ku kaxaysanayeen ay joojiyaan waxaan ku riban imika soo itixaamadii dib loo qaado itixaamada marka ardayda laga qaado waxa jira phobia laga qabo ardayda Dawliga klaaska ardayga markuu macallinku galo waa iskuul Dawliga markuu sheegto macallinkii ilaalinaya waxa moodaa inuu ku jiro istifaac iyaga oo private ma hadlayaan dhibaatooyin badan baa ardayda